dumarkii maanta qaawanaashay ka doorteen inay jirkooda qiimaha leh ay qariyaan. dumarkii maanta waxay ka doorteen waxyaabaha shayaadiinta ay keeneen inay ku xarakoodaan oo ay ku socdaan, dhulka ilaahayna ay ku maraan subxaanahu wa tacaala. walaa tufsiduu fi اlardi bacda islaaxihaa, war dhulkan ha halaynina, ha fasahaadinina islaaxeeda ka gadaal. xijaabkii aaway, xijaabkii wuu cabanayaa, dumarkii ayuu ka cabanayaa. qaar baa waxay sameeyeen waxaan ilaahayba xujo ku soo dejin, aayadna uusan ku soo dejinin. rabbi subxaanahu wa tacaala asagoo nebiga la hadlahaya, amar siinaaya, la faraya gabdhaha iimaanka leh inay khayrka ku dadaalaan, jirkooda ay qariyaan, ayuu kitaabkiisa xakiimkaa ku yidhi: yaa ayuhannebiyu qul liaswaajika, nebigan qiimaha leh sharafta lahow ku dheh dumarkaaga, gabdhaha aad dhashay iyo kuwa imtiqaanaa mu'minaadka ah ee wiilasha mu'miniinta ah u jooga: yaa ayuhannebiyu qul liaswaajika wa banaatika iyo wa nisaa'i almu'miniin. gabadha waxaad fahmi kartaa xijaabka ayaa deliil u ah inay iimaan leedahay. xijaab xumida ayaa deliil u ah in iimaankeedusa kaamil ahayn amaba aysan lahaynba. gabdhaha iimaanka lahow maxaa idinku dhacay? amarkii ilaahay aaway? war dad iimaan le ma tihiin miya? war dad ilaahay jecel ma tihiin miya? dad ilaahay amarkiisa raadiya ma tihiin miya? xaaladda maanta la maraayo waa xaalad cajiib badan. xijaabkii maanta say dumarku yeeleen bay yeeleen. rabbiyo waxaad naga qaadi karta naga qaad, waa kaasaa xijaab la'aan baan soconaynaa ayuu u dhigan yahay ficilka ay samaynayaan. rabbi hadduu dhahay war xijaabta, hadduu dhahay war jalaabiib xirta, oo ay xirteen jalaabiibyo wax u eg, oo ay xirteen dhar jirkooda laga sifayn karo, oo ay xirteen dharay shayaadiintu u riyaaqdo, maxay u dhigan tahay walaalayaal? gabadha iimaanka lehay xijaabo, midda rabbi ka cabsatay xijaabo, war midda ilaahay agtiisa iyo la kulankiisa jecelay xijaabo. xijaabka maanta lagu ciyaaray joojiya. gabdhaha da'da yar ee saraawiisha qaata, kuwa da'da yar ee aroosyaha u qaata dharka shayaadiinta, war ilaahay ka xishooda subxaanahu wa tacaala. gabdhihii xijaabka way ku ciyaareen, gabdhihii xijaabkii way diideen, gabdhihii xijaabka inay sidii uu ahaa shuruudiisa ay u fuliyaan way ka dhaga furaysteen. war amarka ilaah haddii maanta la maqli waayo, shanqarta jahannamaa la maqli doonaa qiyaamo haddii la tago. amarka allah haddii maanta la dhugan waayo oo la fiirin waayo, jahannamaa la arki doonaa maalinta qiyaamaha, weliba caynalyaqiin baa lagu arki doonaa. walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim buu dhaha ilah subxaanahu wa tacaala: rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun. hadday arki lahaayeen walow taraa, ama aad arki lahayd xilliga mujrimiinta, dembiilayaasha, xijaab diidayaasha, kuwii isqaawiyey, kuwa salaada diiday, kuwa amarka alla ka dhaga furaystay, kuwa xaaraanta cunay, kuwa deris ka dhibay, mujrimiin dhammaantood. walow taraa id ilmujrimuuna, maxaa la arkayaa? naakisuu ru'uusihim, madaxooday foorarinayaan. xaggee la taagan yahay? cinda rabbihim, rabbigood agtiisa. ma baxsan karaan, laaluush ma dhiibi karaan, lama soo fakan karo, meel ay ka bixi karaan ma leh. waa cinda rabbihim, oraahdooduna ay tahay: rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan. rabbow aragnay naartaad noo sheegi jirtay, rabbow maqalnay shanqarteedii qayladeeda, rabbowna celib aan camal fiican soo qabanee, farjicnaa nacmal saalixan. naarta ayaa ilaah subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay dadka noocaasa inay aadaan. na celi ma jirto, laysma soo celiyo, gadaal lama soo aado, dib looma soo noqdo. war maanta intay goorigoor tahay, gabdhaha muslimaadka ha ka faa'iidaystaano, khayrkii wanaagga ha ku dadaalaano. xijaabkii dumarka maanta way ku cayaareen. cumarna ma joogo, cumar radiallaahu canhu ma joogo. sababtu waxay tahay 3 waxyaabood ayaan rabbigay ku waafaqay buu yidhi. 3 arrin baan ku waafaqay. waxaa ka mid ahaa aayadda xijaabka. rasuulka allow dumarka xijaab aad buu ugu dadaali jiray in la xijaabo, aad buu ugu dadaali jiray in la dhowro, aad buu ugu dadaali jiray in la xafido dumarka. ilaahay subxaanahu wa tacaala
saddex waxyaabood baan ku waafaqay buu yidhi. waxaan ku waafaqay aayadda xijaabka. rasuulka allow dumarka xijaab. markaa lama amrin rasuulka sala allahu calayh wasalam in dumarku ay xijaabtaan. bannaankay u soo bixi jireen xirsan lilxijaab. cumar radia allaahu canhu bannaanka ayuu ku arkay sawda, wuu soo ceersaday baa la yidhi. way ka soo carartay. rasuulka alla sala allahu calayh wasalam ayay u soo gashay. rasuulka allow cumaraan ka bixi la'nahay radia allaahu canhu. dumarka maanta jooga cumar hadduu arki lahaa say xaaladdu noqon lahayd. gabdhihii ummahaatumu'minaadka ahaa yuu ceyrinayaa oo leeyahay guryihiina gala oo leeyahay xijaabta. rasuulka allow maa la xijaabo. cumar dhaaf buu yidhi, xaajaadkooda ha u baxaanee. rasuulku wuu imaanaya. rasuulka allow dumarka ha la xijaabo. baari baa jira, faajir baa jira, ku qalbiga ka bukaa jiro cudurka dumar ka qaba. rasuulka allow ha la xijaabo. ilaahay baa soo dejiyey, waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab. dumarka haddaad mataac weyddiisanaysaan, haddaad wax weyddiisanaysaan, xijaabka gadaashiisa ka weyddiista. war xijaabka gadaashiisa kala hadla. war dumarka taasaa u fiican, idinkana idiin fiican. daalikum adharu liquluubikum wa quluubihinna. qalbigiinnaba war xijaabka ayaa ku wanaagsan, xijaabkaa ku fiican. dumarku waa fitno. rasuulka sala allahu calayh wasalam ani gadaashay ugama tegin ragga fidna dumarka uga daran buu yidhi. wallaahi maanta waa fidnownay. kii fidnoobaa dumar buu ku fidnoobay, kii dhibaato kalaa dumar sababteedu ku galay, kii zinaystaa dumar sababtoodu ayuu ku galay. xijaab la'aanta maanta jirta, xijaab la'aanta maanta caalamka ka jirta, cumarna uusan joogin. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. dumarow ilaahay ka cabsada. maalinta aakhira haddii la tago, rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayh wasalam in la keeni doono dumar adduunku intay joogeen caariyaad ahaa, kaasiyaad ahaa, caariyaad ahaa, maa'ilaad ahaa, mumiilaad ahaa, madaxooda aad mooddo ratiga geelee baadiyaha daaqa kuruskiisa oo kale oo iilan. jannada alla inay galaan iska daa buu yidhi nebiga, xataa udugeeda heli maayaan. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. war maanta dib isku qabta, towba la imaada, rabbigiin barya, allow noo dembi dhaaf dhaha, xijaab fiican xirta, rabbi ka xishooda, shayaadiinta carageliya. rabbi subxaanahu wa tacaala amarkiis wax idiin dhaamaa ma jiro. yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin. maxaa la odhanayaa? yudniina calayhinna min jalaabiibihinna. iska soo raariciya oo waxaad isku dabooshaan dharka jalaabiibta ah, dharka ad adag ee xooggan, dharka aan laga sifayn karin gabadha jirkeeda, dharka ahlu naarka aan ahayn, dharka ilaah subxaanahu wa tacaala ugu talagalay dumarku inay qaataan. lacibka ka daaya walaalayaa, aayaadka alla jeesjeeska ka dhaafa, aayaadka ilaahay ha iloobina. naagaha iyo dumarka xijaabka ka tegey say xijaabkii aayadda alle u iloobeen ayaa naarta loogu hilmaami doonaa. falyawma nansaakum, maanta waan idin hilmaamaynaa, naartaan idinku hilmaamaynaa. kamaa nasiitum liqaa'a yawmikum haadaa, saad u ilowdeen oo kale maalintan la kulankeeda. war jidhkan rabbi baa kuu sameeyey, rabbi baa khalqay. wuxuu sameey ku yidhi sameey, wuxuu qaada ku yidhi qaado, wuxuu ku astur ku yidhi ku astur. haddaadan yeelin naarta lagugu asturayaa, waciyaadu billaah. haddaadan yeelin dhawaaqaada iyo qayladaada naarta laga dhex maqli doonaa. suu rabbi tilmaamay subxaanahu wa tacaala, wahum yastarikhuuna fiiha rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunnaa nacmal. meeshay ka soo dhex qaylin doonaan, qayladoodaa laga maqli doonaa naarta gudaheeda. arooskaa laga maqlay qayladeeda maanta ayadoo caariyaad ah, arooskaa laga maqlay qayladeeda maanta ayadoo catar iyo barfuun marsan. suuqaa laga joogi la'yahay gabdhihii, suuqaa laga mari la'yahay gabdhihii, masaajidkan ka aadi la'nahay gabdhihii. saas darteed rabbigiin u soo laabta, war xishoodka ku dadaala. wuxuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayh wasalam ambiyadii hore waxa laga soo minguuriyey, hadallada laga soo dhaxlay ee laga soo helay waxaa ka mid ahaa, idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta. haddaadan sariig lahayn, war gabaray haddaadan xishoonin, war haddii xishoodkii kaa dhammaaday, war haddaad noqotay qof qalbigeeda iimaanka laga tirtiray, ilaahi subxaanahu wa tacaala hortiisaa la tegi doonaa. mawcidku waa meesha, ballantu waa meesha. rabbi subxaanahu wa tacaala yucadibu man yashaa
wayarxamu man yashaa wa ilayhi tuqlabuun. kuu doonuu cadaabaa, kuu doonuu u naxariistaa, xaggiisaana loo noqonayaa. gabdhaha iimaanka lahow, ilaahay u soo laabta, war diinta alla qaata, war iimaanka fuliya. war xijaab baa lagu yaqaanaa inan iimaan leh, xijaab baa lagu yaqaanaa gabar iimaan leh, dhar adag oo xooggan baa lagu yaqaanaa gabar iimaan leh. tii jaamacadda dhigatay maanta shaydaan baa kaxeeya, waayo waxa uu jecel yahay bay labisan tahay. tii dugsiga hoose dhiganaysay xaaladdeedu waa sidaa. tii arooska aadaysay xadid walaa xaraj, iska baddaaba. war dumarow maxaa dhacay? war dumarow ilaahay maa loo soo noqdo? dumarow jannadaa rasuulku tilmaamay, ballarkeeda samaawaadkii arlada ay la eg tahay. muttaqiin baa loo diyaariyey, mu'minad baa loo diyaariyey, tu iimaan leh baa loo diyaariyey, tu aan ayada amarkeeda ikhtaaranin oo aan dooranin baa loo diyaariyey, oo amarka alla ku socota. wamaa kaana limu'minin walaa mu'minah idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim. wiil mu'min ah daayiq uma aha, wiil ilaahay aaminay uma habboona. wiil ilaahayow yidhi rabbi ku xidhan, iimaan leh, rabbi agtiisa raba inuu khayr ka gaaro uma bannaana. daayiq uma aha, waxu cuntantana ma aha. gabar mu'minad ahna waa la mid oo uma bannaana. haddii allah iyo rasuulkiisa ay amar jaangooyaan, arrin ay xukmiyaan, arrin ay gooyaan, an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim, inay ayagu khiyaar doortaan. xijaab qaadaa la yidhi, koofi baa loo sameeyey maanta. xijaab qaadaa la yidhi, labadaa dhinac ee keliyaha ah ayaa ka duleela gabdhaha xijaabka qaata. rabbi dhiiranaasho badana ay ku dhiiranayaan. famaa asbarahum cala annaar, maxaa naarta ku sabar badnaysiiyey? rabba wax naga qaad waa kaayee, waa macnaheeda. xijaabkaadna amartay waa duleelinay, xijaabkaadna amartay kor baan u qaadnay, xijaabkaadna amartay waa isku dhejinay. ilaahow maxaad tari kartaa? dhibaatadana haysata meeshaasay ka socotaa. war gabdhaha ha la qabto intii la qaban karo, war intii lala hadli kara ha lala hadlo. war qofkii qudriye awood u lahow jooji dheh waxaan. caalamka maanta dhibaatuu ku sugan yahay, mashaakil adag baan ku sugannahay. rasuulku wuxuu dhahay adduunku waa macaan, adduunku mataqaanaa waa khadra, waa cagaar. labadana ilaahay adduunkuu ku kulmiyey. ilaahay baa khaliif idinkaga dhigay, waa idin keenay meeshii noocaas ahayd, asagoo doonaya inuu fiiriyo kayfa tacmaluun, saad u camal qabanaysaan. fattaquu ddunyaa wattaquu nnisaa, war haweenka ka cabsada, war adduunka ka baqa. war waa laba fidno oo nagu wareegsan, waa laba fidno oon maanta ku fidnownay, waa laba fidno oo dhibaato badan, waa laba fidno oo caalamka rogay, waa laba fidno oo dhibaato badan na gaarsiiyey. adduunkana waad u jeeddaa, xalaashiisii baan ka tagno, xaaraantaan daba orodnaa. salaadayna seejisay, khayrkii wanaagguna seejiyey. falaa taqurannakum alxayaatu addunyaa, waa noloshaan adduunkaysan idin sirin, noloshaan adduunkaysan idinkadinin. noloshaan adduunka ka dhiga mid aad aakhira u sahay samaysataan, ood wax ku beerataan wixii aad aakhira cuni lahaydeen. sahayka qaata, meel saraa loo socdaa, meel fog baa loo socdaa. sahay ma noqdo dirac khafiifoo la qaato, sahay ma noqoto in inta la labisto tigtog la galo, dharka la dhigo. waad u jeediin sida gabdhaheennu ay samaynayaan. waa la qaawan yahay sida xayawaanka oo kale, waa la dharla'yahay sida xayawaanka oo kale. lama hadli kartid, wax uma sheegi kartid, adaa heer baadiye ah. rabbigaa ka baq ma dhihi kartid, waayo dhibaatada maantana haysatay ka mid tahay. caaisha radiallaahu canha, nicma nisaa bay tidhi, dumar waxaa u qiimo badan oo u fiicnaa dumarkii reer ansaareed, waa dumarkii reer madiino. markay soo degtay walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna, war garbihiina iyo madaxa ku daboola khumurta iyo dharka adag ee waaweyn. waxay jeexjeexdeen oo ay tosheen, oy dhar fiican oo adag ka soo saareen maryihii guryaha u yiilay. maalintaasaa ugu dambaysay gabar reer ansaar ah ama reer madiina oo jidhkeeda la arko. allaahu akbar. maanta waxaa noogu dambaysay sannado aan hadda tilmaami karin dumarkeennu inay xirtaan, amay malaabistii islaamka qaataan, ama ay rabbi subxaana wa tacaala ka xishoodaan. walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna, garbihiina saarta, madaxa intay daboolaan, garbaha ay faydaan. yaasaa bannaanka loogu soo bixi jiray. dharkay ugu talagaleen maanta gabdhaheenna inay wiilasha ajaanibtaa ku qaabilaan, inay ku aadaan, inay xafladaha ku tagaan. waa dharka ilaahay mataqaanaa dadka ku ciqaaba.
وددك إلهي تلمامي سبحانه وتعالى إن نارتا مركا لغو قبي دونو نار أما أدكيسان كرنو جسد كين نارتا أما تقانا أما أدكيسان كرين ولا ليال جسد كين كبد بادي النارتا جسد كين كإلالي النارتا رسولك الله وحد قرد هذا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا وأرنت أقول إلا أقنصده إن المؤمنة إني تهي قبل إسلام إني تهي أمة محمد إني تهي ربي إني جعشهي ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين نبكى لقدايو والله كفصي بعد مقليسا محال الله كفصي dhibaata la gaarsiiyad maqlaysa maxaa loo gaarsiiyey ayadoo khamri cabsan iyo baar ka soo baxda habeenkii 8 saac iyo 7 saac baa gurigeeda la keenaa maxaa loo kufsan waayey rabbi qofkii qabsada rabbi qofkii tala saarta rabbi amarkiisa gabadhii qaadata xijaabkeeda isku taagta meesha ka baxda diinteedii cilmigeeda barata waalidkeed ateecda rabbi khayrkii wanaaga ka barisa nabad bay gurigeeda ugu soo noqotaa aydan asalba aadaynin meel xaraan iyo xumaan ka jirta aydan ba aadaynin ilaa waxay qof xijaabtay xumaanta ka xijaabtay jirkeedii xijaabtay ayay markaa noqonaysaa ugu horeen banaanka markay u baxdo ciyaal suuqa wadada fadhiya yeysan ka badbaadin haday ka badbaado taksiilaysan ka badbaadin haday ka badbaado kabaarka albaabka istaagsan baysan ka badbaadin oo asaga laftigiisa cabsan haday ka badbaado gudaysan ku badbaadaynin gabdhihii maanta saasay naga noqdeen maanta khatara ku jirna rabbow dhagxan ha nagu soo qubin ila waa mutaysanaye rabbow dhulka ha nala gooynin ila waa mutaysanaye caariyad baa dul socota rabbi ma xusto ilaahi subxaanahu wa tacaala amarkiisa ma qaadato salaaday ka caajistaa rabbi ma xusto ilaa qaliilan in yar maahane jirkeeday faydaa jirkeeday qaawisaa aad iyo aad ugu dadaala gabdhaha iimaanka lahow shuruudaha xijaabka ka soo baxa rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa khayr iyo wanaag idin siinaye dharkaad xiranaysaan dhar adag oo xoogan ha noqdo dhar jirkaagaa laga sifayn karin ha noqdo dhar mataqaanaa jirkaaga ku dheggan ha noqdo dawaarlayaasha wiilasha harqaamada tolow ilaahay ka cabsada war gabdhaha ka daaya fidnada waxyaabaha ay rabaan in loo tolo ha u yeelina warkaaddiinii kitaabka alla dhigta oo miiska saarta albumka dharka laga daawado ama laga ikhtaartee laga doorto ka qaado hoosgeliya goono jeexan surwaal mataqaanaa qaab daran finaanad ama funaanad sida ay u taalo rabbi looga magangalo subxaanahu wa tacaala sharteeda yaa u sawiran gabadhii way imaanaysaa saasay u rogrogaysaa kan ii samay bay leedahay kii caaisha ii samay maxaa u dhihi weysay kii zaynab binti jaxshir ay qaadan jirtay ii tol maxaad u dhihi weysay kii faadimo binti rasuulillaah sala allahu calayh wasalam ii tol maxaad u dhihi weyseen maxaad shayaadiinta faajiradda ah kaafiradda ah mulxidada ah ilaa subxaanahu wa tacaala inkirsan ilaahi subxaanahu wa tacaala aan amarkiisa qaadanin aad u dooratay dharkeeda tolitaankiisa saa sameeya catarka ka daaya imtixaanaha isku dhajinina yuusan noqon mid la sifayn karo dharka gaalada yuusan u ekaanin walaalayaalow adduunkan waa laga tegayaa naar iyo janna la kala aadi doonaa wajidka jannada dharka idin gaarsiinaya tosha oo qaata qiimo badna oo lacagtiisu fara badna midka la isku cadaabo qiimo yara oo fiicnaan badana oo qurux badna midkuu nebiga noo keenay sala allahu calayhi wasalam aad aan u dadaalno gabdhaha muslimaadka allah xafido gabdhaha xijaabka ka tegay allah soo hanuuniyo rabbi ha jeclaysiiyo xijaabka kuwa qaatayna ilaahay ha u siyaadiyo jannada meesha ugu sarraysana rabbi ha ku abaalgudo xaqay wanaagga allahna wada waafajiyo dhammaanteenba dad diinta ku dadaala allah naga dhigo rabbiga subxaanahu wa tacaala khayrkii wanaagga hana waafajiyo xijaabkii maanta waa lagu ciyaaray ilaahay sahana ha u naxariisto khayr fara badan ha siiyo mid allaala midda shacaarka alla muujisa ee waddadaasaa u marta oo ilaahi subxaanahu wa tacaala ka barida inuu khayrka iyo wanaagga waafajiyo wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam